gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani iyo saraakiil uu hogaaminayo ayaa saaka booqasho ku tagay dugsiga farsamada gacanta ee ku yaala xaafada Digaale oo ku taala koonfurta madaarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxa wafdiga bartaasi xog waran ku siiyay gudoomiyaha ururka Haldoor Asad Yuusuf Ismaaciil in gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga wadani musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani madaxweynaha mustaqbalka insha Allah bidmillahi kariim in maanta nasoo booqdo sharaf bay noo tahay gudoomiyaha dan warbixin ka siiyay iskuulku 14 galaas oo waaweyn 5 galaas oo workshop oo qalabka iyo waxaas iyo technical la dhigi doono lixna waa practical theory-ga wixii lagu qaadanayay waxa jira 6 galaas iyaguna roomiski theory-ga lagu baran doono deer weyn buu leeyahay qol kasta wuxuu leeyahay xafiiskiisa suuligiisa mashruucan waxa hirgeliyay ururka Haldoor oo feeskii hore ah imika waxaan bilaabaynaa insha Allah feeskii labaad hadii la yiraahdo 120 kun gelinay 120 kun dawladna lagama soo qaadin hay'adna lagama soo qaadin dhalinyar qurba jooga ayaa tacabkoodii halkan gelisay oo doonaysa dadkoodina wax u tartay. Adhanka kale waxa bartaasi iyaguna hadallo mahadnaqa ka soo jeediyay saraakiil ku hadlaya afka xisbiga mucaaridka wadani waxaana yiraahdeen sida tan in la baro farsamada gacanta waayo farsamada gacanta waxa weeyaan aasaaska dal curdina uu ka bilaabmo hadaan lahayn cid farsamo leh oo ka shaqeysa inaan wadana horumarin maanta waxaynu ognahay dad fara badan oo ajaanib ah oo dalka jooga sababta u yimaadeen ay culayskeeda u saarto iskuuladan oo kale Haldoor hadilmi isagu bilaabay oo waxyaalo fara badan oo ambaba hadilmi maxaa equipment-ka culus ee qaaliga ee loo baahan yahay inay ka caawiso ambaba qaybo hadilmi maxaa intan ka fara badan ay hadilmi ku darto ayay hadilmi ku dhaqaaqi doontaa kolka Haldoor waxaanu hadilmi maxaa ugu bushaareynaa wadani xukunka haday timaado inay aad iyo aad ula shaqeyn doonto iskuulkan iyo kuwa la mid ah guntiga gabagabadii waxa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani isla markaana ballan qaaday lacag cadigeedu dhan yahay $6,000 hadnaqaya gudoomiyaha iyo dhammaan xubnaha ururka Haldoor oo ku dhiiraday iskuulka intan leeg aynu dhex joogno ee dhismihiisu halka taagan yahay inay u bareeraan iyagoo dhalinyaro iyagoo tujaar ahayn waxayna tusinaysaa taasi dadku markay niyadda la yimaadaan waxa qabsan karaan marka waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliland inay ku daydaan inay tusaale fiican u yihiin dhalinyarada Haldoor waan jeclayn inaanu ka soo horeyno haddaan nahay xisbiga wadani guud ahaan aan ka soo qayb galno oo dadku waxay qabsadeen soo aragno indhaha ku aragno waxaan jecelahay inaanu qaadaan yar ku daro insha Allah iskuulkan ka badana uu soo socdo maanta waxaanu ku daraynaa $6,000 dhammaan taageerayaasheedana waxaan ugu baaqaynaa inay gacan soo siiyaan iskuulka Umar Shaafi TV-ga caalamiga Rayo caasimadda Soomaaliland Hargeysa.